ku dhawaad 1,000 ciidan oo uu tababar u socday in ka badan sanad barkiis ayaa maanta Muqdisho loogu sameeyay munaasabad loogu dhaarinayay kamid ahaanshaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Waxa igu wallaahiya igu billaahiya Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u rajeeyay ciidamadan inay baabi'iyaan magaxumada ka soo yeerto xabsiyada dalka gaar ahaan xabsiga dhexe. Waxa uu sheegay haddii aysan waxba ka bedelin arrintaasi ciidamada ilaalada xabsiyada in xabsiga dhexe uu ka mid noqonayo mid ka mid ah goobaha lagu kobciyo fikradaha argagixisada mucaskar. waxaase sii dheer in qof kasta uu halkiisa ka sii wadayo wixii lagu soo xiray taasi oo ka dhigan inaanu waxba iska bedelin dambiilaha ay xukumaan bahda cadaaladda. waxaan rabnaa oo rajaynaynaa horta marka hore in wax weyn aad ka bedeshaan aad ku soo kordhisaan ku soo biiritaankiina ciidanka maanta aad ku soo biirteen inay wax weyn soo kordhiso sababtoo ah waad ogtihiin qof walbana waa ogyahay sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay ma aha qof maxbuus ah oo dambi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku dhex jiro laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo asigoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay haddii uu xabsigi markii uu galo oo isgaarsiin haysta ka waran oo telefoon haysto xitaa oo social media uu ku jiro ka waran waxa ka sii dar intaasi markii uu xabsigi iyo ciqaabtii sharciga u jideeyo oo dhameysto oo banaanka u laabto wax dhaqan celina ma qaadan ileena wuxuu ku laabanaa dambigii marka hore oo ciqaabta ku muto ku laabanaa kii argagixiso ku laabtay kii daraagiska isticmaalka muqaadaraadka ku laabtay kii tuuga ahay burcadnimadii ku laabtay arintaasi saas haday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan waxa u maleynaa maanta in inta halka xabsi ku yaalo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogan taliyaha xabsiga waxa laga rabaa hadii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro hadii uusan dhaqan celin wanaagsan u sameeynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorka u soo xadeeyo ay xukuman yihiin haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahe wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixiso fikirka argagixisada lagu kabciyo oo argagixisada lagu adeego oo horjooga ka yahay ma aha taliyakaas wasiirka cadaaladda oo soo xiray tababarkan ayaa ballan qaaday ka xukuumad ahaan in ay soo dhicin doonaan xuquuqda ciidamadan xukuumad ahaan anaga waxaan isku dayaynaa insha Allah in la helo xuquuqdii ay lahaayeen taliska usluubta iyo saraakiisha iyo ciidamada usluubta dhammaan in la helo waa la socotaan tirakoob inuu socday tirakoobkaas oo xuquuqdiisa la socoto waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ka marar dhelino oo saraakiisha dhan ay helaan xuquuqdii ay ku lahaayeen qarankooda. munaasabadda xiritaanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liibaan Cali Yarow taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenadiisa waxaa sidoo kale marti u ahaa mas'uuliyiin ka socday hay'adaha taageerada Soomaaliya Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.